Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan channelkeena Ximilada Nolosha. Maanta mawduuceenu waxa uu ku saabsan yahay qoraanimada. Ka hor inta aynaan mawduuca bilaabin, fadlan YouTube-ka subscribe saar, xagga hoosena faalo noogu reeb. Qoraanimadu waa xirfad ay hibo ku lamaan tahay oo aad loo jecel yahay. Qofku isaga ayaa iskii baran kara haddii ay habcurinta qoraalkiisu ay aad u wanaagsan tahay. Inta badan qofka qoraaga ahi waa uu ka fiiro dheer yahay ama ka aragti dheer yahay bulshada uu la nool yahay, sababta oo ah mar walba waxa uu daraaseeyaa ama si dhab ah ugu fiirsadaa dhacdooyinka kala duwan ee hareerihiisa ka dhacaya. Waxa uu falanqeeyaa oo waqti geliyaa hab u socodka nolosha iyo abuurta eebbe ee quruxda iyo wax ku qaadashada leh, waxaana uu aad ugu dhugma yeeshaa dareennada fardaarka ah iyo baxaaliga kala duwan ee nolosha. Qoraagu waa uu ka dareen nugul yahay dadka kale ee aan waxba qorin, sababta oo ah waxa uu odorosaa bardhamaadka dhacdooyinka maanta taagan. Qoraagu badanaa waa mid wax ka qora badhaadhaha iyo burburka ay bulshadiisu la kulanto si aan hogga iyo halaaga mar dambe loogu dhicin. Waxaa jira qoraayo si gaar ah wax uga qora xadaaradda iyo dhaqamada soo jireenka ah ee ay bulshooyinka dunidu leeyihiin. Taasina waxa ay fududaysaa in aanay xadaaraduhu lumin, bulshooyinka isku oosha ahina aan halburkoodu isu dhexgelin. Qoraayadu waxa ay ka siman yihiin daawashada iyo fiirsashada muuqaalada dabiiciga ah iyo deegaanka qurxoon. Waxa ay taasi maskaxdooda siisaa deganaan iyo gudlasho ay maskaxdoodu u soo maaxato dareen curineed oo heerkiisu aad u sarreeyo. Qoraagu marka uu wax qorayo ama uu damacsan yahay inuu maqaal ama buug qoro, sida caadada ah waxa uu tagaa meel jawi degan, waxaana uu cabbaa bunka oo qofka geliya firfircooni iyo tamar dheeraad ah. Soomaalidu qoraalka waxa ay bilowday wixii ka dambeeyay 1972 oo farta Soomaaliga la isla qaatay in wax lagu qoro kadib markii la qabyo tiray. Waqtigan aynu joognana waxa uu marayaa meeshii ugu wacnayd, hab-qoraalkeenu haba iska hooseeya. Saadaasha mustaqbalka dhow ama 10 sano ee soo socdana waxaa la filayaa in ay wax qorista iyo akhriskuba gaari doonaan labanlaabka halka uu maanta taagan yahay. Ugu dambeyn, haddii aad soo gaadhay fiidiyowga halka ugu dambeysa, fadlan waxaan ku xasuusinayaa mar labaad inaad channelka subscribe saarto.